sakadii aad ku barakaynayso xoolahooda una ducee ducadaadu deganaashay dadka u tahay nabi maxamedow arkaanu islaamka markuu nabigu tirinayo sallallahu alayhi wasallam sakada ayuu ku daray mar walbana salaad ay ku xiriirsantay quraanka dhaxdiisa wa hunaaka tarhiib min man'iha quraanka iyo xadiidka waxa ku sugan aadin looga digay qofku inuu sakada iska haysto oo ku bakhaylo إلهي باوحد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وحبايا يوم ملايين كوى حوله هذا إسكا كيسانا يسكدا كبحنين إن هو ناكسنت هيا يمودين maalinta qiyaamaha waa lagu cadaabi doonaa maalka isaga ah oo dhan walba waa laga dhajin doonaa isagoo kulul ayaa lagu gubi doonaa lagu naari marka la ilaahay wuxuu wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayudawquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah wixii ilaahay uu siiyay dadka ku adeegaya بخيل وقفك فرلك كو أضيقيا يا بحنين يوم لين انتاسين وفي عنت ما انت قيامها قرط الله قدو بالدولة رسول كأنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أبو كفة السري سيدا قرط الله قدو بيو وحلقا ديقا يابور مالكي شجاعا أقرع مس بدار له سنت أولي دلادي قرط اسكا قدو بيا قفك laba miciyadoo dhaadheer buu halka biyo buuflaha ka gelinaya cunaha wuxuu leeyahay ana kanzuk ana maaluk anu waxaan ahay kaydkaaga iyo xoolahaaga marka nusuustaas waxay tilmaamaysaa qofku faralka hadduu ku bakhayro ku adeego inaanu ka faa'iidi doonin marka labada kelmadood waxay la xiriiraan sidoo islaamku u dhiirigeliyay faralkan in la guto iyo sidoo uga digay in lagu bakhaylo maadaam waqtiga aynu siinay aanu badnayn daraadeed مسائلka sakada la xiriira ee dadka ka qarsoomi karaan dareerin doona insha Allah dhowr iyo 10 ilaa 14 mas'alo oo kamida waayo waxna si guud baa loo ogyahay waxna dadka way ka qarsoomaan ama su'aalo iska weydiiyaan mas'alooyinka waxa kamida sakada deynta oo qofkii hadii deyni ay ka maqan tahay maxaa uu ka yeelayaa deynta iyada ee ka maqan uu sakeynaya hadii uu cidii uu kulaha ka soo qaadan karayo deynta la sakeynayana waxa kamida dumarka meherkoodi ay ragga kulahaayeen qoladii ninku uu waxayo oo ay ka soo qaadan karayso deyntii qofka faqiirka aad kulahayd sakada ma u siin karaysaa waxaad u siin karaysaa hadii aad u dhiibto oo tiraada deynina waa tii jirtay aan kugu lahaa faqiirow ama shaqaalow xoolihiina waa kuwan marka adaa ikhtiyaar kale ama isi ama qaado ama deyntii iskaga bixi laakiin inuu yiraahdo deyntii aan kugu lahaa baan u goostay sakadii sax ma aha de waxbaba uma dhiibinba isagii un baa adeegsado dabada haysta qodobka saddexaad waxa weeye hadii uu qofku lacag dhigto oo ugu talagalay inuu ku xajo ama ku cumraysto ama uu ku guursado oo sidaas sanad ugu soo wareego ama mashruuc kale ba uu dhigto lacagta ma sakeynaya ha uu sakeynaya lacagay kol hadii aad taalo lagu shaqaysan waayo waa maal aqbali kara in lagu shaqeeyo qofku isagu ba iska dhigtay masaakiintu xaqoodii way leeyihiin sakada ahaa laakiin xaj baan u dhigay oo mashquul buu ahaayay waxa ma shaqeynayo iskaga wada hawshaada laakiin sakadiina bix qodobka afraad waxa weeye xoolihii sakadu ay ku waajibtay oo sanadkii u soo wareegay hadii qofkii aanu bixinin oo intaanu bixinin uu baabao wuu gubtay midal maalki ama badii baa liqday waqtigii sakadana waa la gaaray muxuu yeelayaa ولبا قول قوله waxay leedahay maalku ku waajibaa sakadu ay ku waajibtaa qolana waxay leeyihiin dumada ay ku waajibtaa marka hadii la yiraahdo maalka ayay sakadu ku waajibtaa de maalkii uu baxay weey kolse hadii uu baxay isagoo sakada bixin karaya waa deyn lagu leeyahay laanahu taadda
gaabis buu sameeyo xoolihii wuu bixin karayay dadka waxoodii masaakiinta iyo fuqaradu iska sii haysta ilaa intuu maalkii baaba'ayay dee adaa lagugu leeyay leanna waad gaabis dadka waxoodii baad siin weydaa wakhtigii ku habboonaa qodobka shanaad waxaa weeye sekada xullida ama dahabkan dumarku isku qurxiyaan seke ma leeyi maya sida ay culimmada intooda badani ku tegeen jumhuurulculamaa ruuxa dumarkii in kastaba ha la eegaado dahabka ay isku qurxisay kol hadduu kii caadiga ha la isku qurxinayo yahay seka laguma lahaa qodobka lixaad waxa weeyaan hal zakaa fi rawaatib miyaa mushaharka badana sekada gaadhay lagu leeyay seko tana dhowr kun oo dollar buu qofku qaataa wax 85 garaam ee dahabka u dhigma ama ka badan weeye mushaharkiisu 4 kun oo dollar 5 kun oo dollar buu ayaa u soo dhacaysa bishi seka ma lagu leeyahay mar haddaan sanad u soo wareegin maya laakiin waxa uu ka bixinayaa un sadaqa sunno ah qodobka toddobaad waxa weeyaan sekada xoolaha garanna in lagu leeyahay laakiin wax shuruudahay ma jiraan oo markuu maalkaasi sekadu ay ku waajibayso shuruudaha u muhiimsani waa 3 xoolo waa inay foofaan oo haddii aanay foofin markaas la calfiyo sanadka inta badan waaba sida dhacdo xoolaha qaarkood oo la maale ah seke laguma yeelanayo xooluhu waa inay yihiin qaar aanay ahayn qaar shaqeeya sida fardihii iyo awrtii iyo waxyaaba awrtii macnaha biyaha lagu dhaansanayay reerku raranayay kuwayaalahaas weeye dee milkigiina waa inay ku jiraanoo qofku iska leeyahy qodobka 8aad waxa weeye sekadu miyay ku waajibaysaa ama ma la siyaadin karaan idhaahdo cibaadooyinka waxaynu ku naqaanaa inaan la kordhin karin salaada lama kordhiyo soonka lama kordhiyo shay walba intiisuu yahay sekadiina waa cibaado ma la kordhin karaa intii lagugu lahaa ha waa la kordhin karaa oo waxay kaga duwan tahay waa cibaada maaliya waa cibaado xagga dhaqaalaha dhaqaalahana mar walba islaamku wuxuu dhiiriyaa in la badbadiyo la buuxiyo la ballaadhiyo waxa u daliila nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiid ka suganoo xasana nin baa nebiga u keenay wixii seke lagu lahaa wax ka badan markaa rasuulku waxa uu ku yidhi daaka aladii calayka horta intaa aan kuu sheegay baan kugu lahayn sekada wain tadawacta bikhayrin qabilnaahu minka waajaraka allaahu bihi dee intii keentay laakiin waad ka soo kordhisay haddaad siyaado keentay waa ka aqbalay ilaahayna ha ka abaalmariyo markaa sakaad fidriga hadduu qofku kordhiyo sekadii maalka neefkii lagu lahaa ayaabuu ka badiyey neef ka shilis ama irmaan ama riman buu ka dhigay way sii wanaagsan tahay oo ajrigaasuu leeyahy su-aalaha waxaa ka mida sekadu maxay ku waajibaysaa midhahan beeraha ka soo baxa fi lquuti اlmudakhar waxay ku waajibaysaa un raashinka kaydka gala ee firida ah ee la cuno sida markaa bariiska iyo hadhuurhka iyo masagadii iyo bahashan kale la idhaahdo digirta iyo waxaa laakiin khudrawaadka iyo waxaa cagaaran ee aan kayd galaynin kuma waajibayso laakiin sunnun baa laga bixinayaa qodobka 11aad sekada ma la qiimeyn karaa oo qiimo ma lagu bixinayaa hadhuurhkii iyo raashinkii iyo xoolihii noolaa iyo mise waa in shayga laftiisa la bixiyo waxa keliyahoo lacag lagu bixin karaa un waa sekada ganacsiga waxa kaloo dhan sekadiisa shaygaa laga bixiya dahab baa laga bixinayaa baashan kale xoolihii noolaa xoolo nool haddii aad lacag ku bixiso dee kaama ansaxayso xoolihii noolaa midhaha laftoodii baa la bixinayaa qodobka 12aad waxa weeyaan sekada ma la qadimi karaa haddii duruuftiiba ay timaado ama iyadoon duruufiba jirin waa la qadimi karaa nebiguba adeerkii cabaas wuu ka qadimay sala allahu calayhi wasalam markaa haddana baahibaaba iska badan qofku buug buu u furaya uu sii bixinaya laakiin markuu bixinaya biniyati zakaa waa inuu seke ku bixiyo oo u niyoodaa bakhaylnimay noqonaysaa kaana socon mayso haddii buugguna dib u eegtaa tidhaa intaa kaa baxday u niyood seko niyadu sideedaba ka dabatuur male waa hordhig niyadu marka lagu leehay camalkani waa niyo salaada markaad gelaysaa la niyoodaa soonka markaad bilaabaysaa la niyoodaa sekada markaad bilaabaysaa la niyoodaa laakiin ka soo qaad inay seke ahayd iga dhigbataa socon mayso waa salaadiio intuu tukata aad gadaal ka niyootaad tidhaahdo
bal taa faralkiiba ka dhigaan tukaday kolkii hore sunnaa baan ula jeeday marka wuxuuna waajiba markaad sekada bixinayso inaad buugga ku qorayso inaad sekanimo u niyooto kama bedeli kartid haddaad sadaqa u bixisay haddaad kii aad u niyooto unbay ahaanaysa waana la qadimi karaa qodobka saddexaad 13aad sekada intee la siinaya masaakiinta in la siinayo masrafkeedu yahay garanaya kuwa u badan fuqarada iyo masaakiinta ayina qadarkee la siinaya waxa la siin karaa wax uu qofku ku shaqaysto amaba sanad ku filan ba rasuulku sallallahu alayhi wasallam way dhacday xaasaskiisa mararka qaarkood inuu u dhigay biil hal sano ku filan ama raashin hal sano ku filan ayuu u dhigay marka fuqarada iyo masaakiinta sekada la siinayo wax waafiya waa la siin karaa wuxuu hadduu badan yahay oo dee wax badan u gaadhayo oo inuu ku shaqaystay inuu ku guursado iyo inuu kayd ka dhigto dee raashin badan ka dhigtay iyo waa loo siin karaa inagoo taa uu nebigu dhigtay u daliishanayna haddii dee wuxuu uu yar yahayna dee waa in lagu saydhsaydo oo la gaadhsiiyo masaakiin doora ugu dambeyntii qodobka 14aad qofka ganacsadaha ahi habka uu u sakaynayo maalkiisa sidee buu noqonayaa waxa uu noqonayaa sidan soo socota way kala duwan tahay habka xisaab xidhka loo sameeyo iyo habka sekada loo bixiyo isku khaldina xisaab xidhku dee 5 shay baa la isu geeyaa deyntii maqnayd tii aad lahayd waxaan qalab yaale ee fixed asset-ka la yidhaahdo iyo agabkii la iibinaya fentariga la odhanayay iyo kaashkii accountka yaal shantaasaa la isu geeyaa sekadu way ka duwan tahay iyada lama xisaabiyo wixii deymo baxay ee dadka ku baxay ee reerku uu cunay ama shaqaaluhu ay biishadeen iyaga lama soo qaado ilaahay taa inagala xisaabtami maayo waa la liqay way tagtay fixed asset-ka iyo qalabkan shaqaynayana isagana xisaabta laguma daro waa laga reebaya labadaasi markay ka hadhaan waxa soo hadhaya waxa weeye waxa saddexaad oo laga reebaya deynta lagugu leeyahay adigu ma lehide qof baa leh shantii shay xisaab xidhka lagu sameynayay markaa 3 baa kaa baxay waxa soo hadhay 2 wixii kaash ku yaala iyo wixii aan idhaahde alaab adiibinaysa badeecada waxa saddexaad oo ku darmaya deyntii adiga ka maqnayd ee soo qaadan karaysa dadku ku ogolaa lagu siin karayay ila deyntii waa kala qaybsanto mid lagugu lahaa iyo mid aad adigu dadka ku lahayd baahay marka tii dadku kugu lahaayeen waad iska reebto xisaab xidhka kuma darin markaad sakeynaysay laakiin tii adiga ka maqnayd waad ku dartay badeecada adiibinaysana waad ku daraysaa kaashkiina waad ku daraysaa saddexdaasaad isu geynaysaa marka waxaad u qaybinaysaa 40 boqolkiiba 2.5 ama 2 bar dadku ma wada yaqaano formulada way ku yara adagtay nisba miyawiya inay dadku raacaan laakiin ta ugu dhib yar waxa weeyaan totalka waxaad haysato hadduu gaadhayo 85 garaam oo dahab wax u dhigma ama ilaa $4,000 iyo wixii ka sii badan hadduu gaadhayo wuxuuna leedahay loo qaybiyay 40 meesha soo baxda ayaa sakadiya tasaa kugu dhib yar ariga soo 40 meelood marka 40 loo dhiga midsaka ma mid baa saka tanna waa saasoo kale loo qaybiyo baad leedahay waxaad haysato waa deyntii ka maqnayd ee dhaweydeen lagu dafirsanayd ama dad xili kara aad ku lahayd iyo alaabtii ku taalay iyo kaashkii intaasaad sugaysay kadibna waxa aad tidhi uun loo qaybiyey 40 markaasay soo baxaysaa sakadu alaabta waxaa si raaci kara uun markaad qiimeynaysa lacagtii garanay dee waa lacagta taale alaabta markaad qiimeynaysana waxaad ku qiimeynaysaa qiimaha hadda ku iibinayso kii aad soo siisatay kuma iibinaysid liannahu kaasi marna waa la khasaaraa marna wuxuu yeeshaa faa'iido ka hadda ay marayso alaabta ku sii iibinaysa suuqa ilaa marna computerku wuxuu ku sheegayaa wixii alaabta aad soo siisay marna waxaad sii siinayso kaad siinaysa macal faa'iidada ayaad ku qiimeynaysaa sababtuna waxa weeye faa'iidada laftigeeda la doonaya inay sakada raacdo oo haddaad faa'iidada ku dari weyda sakada arigu naylihii uu dhalay waad ka reebtay bay ka dhigantay arigu luqadii aynu fahmi karaynay reer miyiga ariga iyo geela iyo looda iyo maqasha ay dhalaan waa lagu daraa sakada markaa haddii aad kolkaad qiimeynayso ku dari weyda faa'iidada macnaheedu waxa weeye arigii xoolihii oo aad ka reebtuun maqashii oo aad tihi maqashu iyadu waa faa'iido oo saka ma laha marka haddaad reer miyiga markaad u fatwoonaysa aad leedahay maqasha ku dara adigana waxaa lagu leeyahay faa'iidada ku dar oo miskiinka ha ka reebin
habka loo sakeynaya markaan idiin soo gaabiyo waa nooca aan dul maro waxyaabaha la sakeynaya waxaa ka mid a lacagteenu meel ay aada ugu jirto oo dhulka la idhaahdo dhulkii dan guud buu ka baxay oo dan gaar buu noqday oo innagaa iska qaybsanay asadkii mustaqbalka macal carruurtu inala qaybsan lahayd waynu ku kala tagnay nin walba inbaa u xidhan nin walba waxaa la leeyahay sekada bixi oo intaasaad haysataa soomaha lacagtii baad geliso marna waad sii iidinaysaa marna waad ka baac mushtaranaysaa dhulkaabaad dhul cunbaabaad noqotay annana waa kula cunaynaa markaa sanad walba intuu maraya haddaad 10 sano hayso sanad walba intuu maraya ku qiimee dabeetana sekadu nasii adigana ha kuu kordho annagana ha noo kordho fuqarada iyo masaakiinta aynu wada akalno waa wada cunaynaa waa ka wada macaashaynaa kaasina waa dhulkii markaa laga baac mushtaraynayey kii laakiin xaaska aad u dhisaysay kaad warshada ka dhisaysay isagu ma laha seko 15 qodob baan idinku soo koobay sekada 15 daqiiqo allah inagu anfaco sooniyo salaad iyo seke iyo cibaadana allah inaga aqbalo laylatul qadrigana allah ina waafajiyo waalidkeena allah u naxariisto inagana allah inooga daba naxariisto waxaynu haynaba allah inoo barakeeyo waxaynu ka baqaynana allah inaga badbaadiyo sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika